meeshan waxaa ka dhacay dagaal asaari dhaawac la guushana waxaa iskala anaga hadda magaalada Badaxa waxaa gacanta ku haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska iyo ciidamada nasuudda marka waxaa ka dhacay meesha dagaalkii xilliga wuxuu bilowday muddo 4 saac oo habeenimo xalay 4 saac ma xalay 4 saac xabad ka bilowday markii xabadda waxay ka bilowday meesha la yiraahdo Yiira Mandasa ciidamada jooga ciidanka booliska meesha caawinaya ayaan soo galnay ciidanka militariga aan soo galay oo aan hogaaminay meeshaas ayaan ku celinay awood waxay sheegteen in adiga dabaqa ay galaan dabaqay jibiyeen oo shirkadda ay galeen halkaas ayay khasaare ay magaalada ugu gaarsiiyeen guriyo iyo shacab ay ku laayeen iyagana waa soo afjirnay haddana waxaa gacanta ku haya arkaysaa indhihiin ku arkaysaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku haya magaalada Badaxa gacanta wuxuu ku sheegay ka hadlay intaan hooyooyinkooda ay tahay ku ubroonaya bay dagaalka rabaan inay geliyaan ilmahaas waxaa loo baahan yahay in ay runtii amarka khaldan lama qaato in ay dib isugu noqdaan inay ilaahay ka cabsadaan in nabigooda ku salliyaan in aysan Soomaaliya waxa weeye Kenya iyo shakhsiyaadkaas waxa weeye dhiigga shacabka ganacsada aysan u adeegsan dana shakhsiga inay soo adeegsan dhiigooda oo ay ciidankooda isku soo dhiibaan oo ay caqiido ku dhintaan Soomaaliya Badaxa waxaan weydiinaynaa dareenka ciidanka xoogga dalka ka waran dareenkaaga maanta farxada lama soo koobi karo wallahi degmadii aniga maxaa la dhihi jiray aan ku noolaa aan waxba ii sheegayaan xag waxbarasho askari qaran dareenkayga wallahi billahi talaahi maanta waxaa weeye beel weeye aadna waxaan ugu faraxsanahay maanta guusha aan ka soo gaaray cadowga ku soo duulay wadankayga sida Kenya iyo xulufada ay soo qiyaamtay oo qaranka ay doodilfkooda ilaa iyo 9 gaarayso ayagina markaan farxadkooda qaar Kenya galeen marka waxaan leenahay dadka nabadiidka dadku waa laba waa nabadiid iyo nidaam diid nimanka nidaam diidka dadkoodii ee dalkooda ha imaadeen waa loo baahan yahay waxa ay wadaan ha joojiyaan leen ciidamada xoogga Soomaaliyeed ee saakay sida geesnimada iyo kartida la muujiyana waxaan leenahay Soomaaliya ha guulaysato ciidanka qaranka Soomaaliyeedna ha israacana midoob maxaad ugu baaqaysaa ummadda Soomaaliyeed ee Badaxa ku dhaqan maanta aad difaac maanta ugu dambeysay waxaan ugu baaqaynaa jabka waa kii ugu dambeeyay ayay u dambeeyay raaceen baan leeyahay marka imaada leena dalkiina imaada waa la jecel yahay dhaafa waxaad ku jirtaan haddaad daydaan tii maanta iyo mid ka xun cawaaqib ka xun baad la kulmaysaa aad sidoo kale waxaan kusoo dhaweynaynaa Xuseen Geelle oo aslan ka mid ah ciidanka Soomaaliyeed saakana ka qayb qaatay hadana maanta lama koobi karo وكافكده لكن كذا مو حرتين انا قاعد برا كقد ان شاء الله جويره ان شاء الله بقول Soomaaliya انا لاتو dareenkaaga ka war waa hanti dhowraha degmada ahna nin ka tirsan ciidanka salaamaha dhamaan bulshada Soomaaliyeed maanta waa tubuul taariikhi ah xurufo Kenya ay soo baahatay wiilal Soomaaliyeed oo la qalday oo wadankooda looga dhigay cadow inay xabad ku soo ridaan wiil Soomaaliyeed aankaas arkaysaan ninka saaka xabadda ku ridahay waa wiil aan garanaynin wuxuu sharaf ku leeyahay calanka Soomaaliyeed wuxuu aan garanaynin weeyaan waa wiil shisheeye ku qaraabanayo 200 ku dhawaad maxaabiis kulli wada arkaan maxaabiis baan u haynaa anaga hadda wiil walaalaheena waa sida shabaab oo ma dhaqmayno gacantan ku haynaa wixii dhaawacana waa daaweynayna wixii kala noolna insha Allah waxaan rabnaa inaan maxalli jiray mas'uuliyiinta gacanta ka yeelan doonto maxalli jiray fashi gooni ah halleena wali waxa u banaan fursad ka faa'iideysta